سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان داودياشا qiimaha iyo sharafta iyo ixtiraamka inaga mudan oo caalamka meel walba aad ka joogtaan iyo xilli walba idin tahayba waqtiga haydii wacnaado waayahan ha samaado waa walaalkiin Cabdiwahaab oo idin lamaanin kale iyo muuqaal horle سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان داودياشا qiimaha iyo sharafta iyo ixtiraamka inaga mudan oo caalamka meel walba aad ka joogtaan iyo xilli walba idin tahayba waqtiga haydii wacnaado waayahan ha samaado waa walaalkiin Cabdiwahaab oo idin lamaanin kale iyo muuqaal horle waad ku maadsantahay la joogaaga kamid ahaanshaha channelkii sida weyn aad ugu xiran tahay channelka mar walbana waxaan rajeenayaa inaad ka arki doontid channelka wax adiga ku xiiso geliya markaasi ama runtii wanaaga iyo samaha hormuudka runtana ku salaysan hadii aad ku cusub tahay channelka oo ay tahay markii kugu horeysay aad nala kulantana subscribe noo saar kambareelka furo fiidiyoogana like gareeya ona sii share gareeyo asxaabada la wadaaga marka si aynu u ahaano mar walbaba kuwa saaxiibko ah samaha iyo dadnimada intaas ayaan mar walba idinku celceliyaa bal fiidiyooga gacanta la saaro maanta waxaan inoo wadaa muuqaal qabsaday baraha bulshada yacni aan arkay runtii muuqaalkani dad badan waxay iska weydiiyeen su'aal balse waxaan doonayaa si degan inaan adigu kaaga jawaabo adigoo markaasi ogaan doono waxyaabaha runta ka ah iyo waxyaabaha aan runta ahayn dad badan su'aal ay iska weydiiyeen waa shaadi sharaf iyo malyumaanka waxa ay tahay su'aasha la isweydiiyay muuqaalkan soo galay baraha bulshada ma mid hadda waxa soo dhigtay malyumaanka ma mid hadda oo cusubba mise waa mid mar hore ahaa oo ay soo qaateen ama dib loo soo cusboonaysiiyay ama iyada iska jeclaysatay inay mar labaad soo dhigatay maadaama ay saaxiibadeed tahay su'aasha qof walba isweydiinayo waxa ay tahay halkii ay ku kulmeen iyo waxa ay ahayd bal horta marka ugu horeysa muuqaalka muxuu yahay daawasho wacan saaxiibaday toban wajiilay waan ku salaamay war badan afka dhulka dhigdhiga war isku mahaya anna waan ku salaamay saaxiibadeedii warka badnayday sidaas soo wada aragteen muuqaalkani waxa uu ahaa ama waxa uu yahay labada fannaan ee markaasi reer Muqdisho gilgili jiray waqtiyo laakiin maanta waayaha iyo waqtiga uu kala irdheeyay mid walbana meel kamid ah adduunka ay ku nooshahay shaadiyo xamar ayay saldhig u tahay gabadha kale walaasheen malyumaanka fanaanada nagu qaaligaana Mareykanka ayay markaasi iyada sal fadhidayo halkaasi ayay ka soo miistaa sababta muuqaalkan ay u soo gelisay waxa ay tahay in muuqaalkan dib loogu arkay baraha bulshada isagoo dad badan ay isticmaaleen si challenge ah kadibna waxa ay soo qaadatay muuqaal ay bari ay wada joogeen Nairobi ama Kenya niraade ay wada isticmaalayeen ama isla wada joogeen labada fanaan ee malyumaanka iyo fanaanada kale ee markaasi shaadiye sharaf dadka intooda badan waxa commentiga ka arkay iyagoo leh mashaadi sharaf ayaa Mareykanka aaday mise malyumaanka ayaa dib u soo noqotay labadaba hadii loo eego mid labada waa ay dhici kartaa inay sidaas sameeyaan laakiin may dhicin oo hadda maahan malyumaankana sidaynu ka wada warhaynaba mar dhow iyo waqti dhow oo xasuusteena aanan aad uga fogeyn ayay ahayd markii ilmo yar lagu qalay oo qaliin operation ay ku gashay dalka Mareykanka oo waxaynu ognahayba barnaamijyo badan oo markaasi Sharma Boy u diyaarsanaa sanadka cusubna markaasi uu ahaa jaanqaadkiisa ugu horeeyay in uu darteed gabi ahaanba u baabi'iyay ama uu cancel gareeyay isagoo markaasi u taagan ama yiri waxaan rabaa in aan sameeyo in aan xaajadeeda ag joogo oo aan agteeda ka soo muuqdo sidaas darteed suurtagal maahan iyada inay joogto Soomaaliya ama Kenya ahaan inay joogto suurtagal maahan hadaba hadii ay taas jirin shaadi sharaf iyadana sidaynu ognaa waxa ay ku sugan tahay magaalada Muqdisho oo markaasi ay soo dhaweyn fanaaniin fara badan oo maami u dambeeyay ama maama u dambeeyay ay ku soo dhaweysay runtii Elliot Hotel ay u kala kicisay oo waliba ay ku garab istaagtay si aan laga sheekeyn kareenin fanaaniinta maanta reer Muqdisho waa fanaanada kaliya ee barteeda ay ka dhax muuqato markaasina aad u soo dhaweyso fanaan kasta oo markaasi damco inuu show ku qabsado magaalada waxayna aad markaasi ugu caaboon tahay soo dhaweynta fanaaniinta iyo inay garab istaagto si ay mar walba iyaga u garab istaagi jireen oo kale fanaanada iyo fanaanadan ma joogan meel isla ma joogan labada fanaanna qof walba waxa uu ku sugan yahay xaalad u gaar ah waxa ayna markaasi ay ka wada sameeyeen inaysan qalbiyadooda kala fogeyn laakiin iyaga jismi ahaan iyo aragti ahaan waa laga yaabaa waana dhacdaaba ama way dhacdayba in ay kala fog yihiin oo shaadi sharaf waxay joogtaa Muqdisho iyadana waxa ay joogtaa halka Mareykanka laakiin ugu fanaaniintu waa laba fanaaniin oo saaxiib ahaan jireen inta baraha bulshada inta isticmaalayeen
aanan weli arag iyagoo is haysto amaba isku dhagan ama iyagoo wax iska sheegayo ama iyagoo markaasi wax kale taba sameynayo dhammaan waxaynu arki jirnay oo kaliya iyagoo is dhinac taagan iyagoo is haysto oo yara kaftamay iyagoo macnaha markaasi meelo badan oo kamid ah xaflado loo wacay iyada mid kamid ah mid kalena lagu arkayay laakiin weli maynan arag waana dadka kaliya aanan arag iyagoo is haysto oo social media isku qabsaday fanaaniin badan arkayay wax badanna waa arkay runtii labadan fanaan muuqaalka ay hadda soo dhigeen waxaan rajeynayaa in aad adigu fahamsan tahay hadaba malyumaanka oo markaasi runtii iyada horay u sheegtay hadal ilaa ay hadda saameyntiisa la isku haysto ayaa waxaan doonayaa ma dhabba inay arinkaasi ka dhabayn doonto mase ciyaar ay ahayd dad badan waxa ay su'aal iskaga keeneen muuqaal hore ee iyadana mar labaad u soo dhigtay malyumaanka oo ay ku sheegtay in ay hadii ay dhasho ay dhaxdeeda soo furanto oo ay soo nadiif garowdo in ay bilaabi doonto fankeeda ay dib ugu soo laaban doonto dadka intooda badan markii ay arinkaasi hadda ay arkeen mar hore ayuu ah muuqaalkaasi intaysan dhalin ka hor markii arkeen dad badan su'aasha isweydiin waxa ay tahay miyay ka dhabayn doontaa arinkan ay sheegayso shaadi malyumaanka misa waa iska horta xaqiiqda waxa ay tahay iyada mar walba waxa ay jeceshahay in qalbiyadiina ku dhex sugnaato ay joogto oo aan lis ilaabin hadii ay iska aamuso ama laga waayo baraha bulshada iyadoo hadlayso waa la ilaabayaa sida xaqiiqda ah laakiin waa mar walba in xasuusin la idin sameeyaa idinka dadka Soomaalida waxyaabaha ay aadka u isticmaalaan waxa ay tahay hadii lagu waayo muddo macsalaama halkaas waa ka baxaysaa iyada marka sidaas u dhicin darteed muuqaaladani oo kale waxa ay ku soo noolaysaa qalbiyadiina si aad u xasuusataan in ay still joogto walaasheen amaba ay wili ay diyaar u tahay in ay waqtigii iwaayihii quruxda badnaa ee hore idin soo dhaxmaray sida muuqaalka aad ilaa hadda la isticmaalo ee ah xitaa siyaasiyiinta qaar ay isticmaalaan dad badan oo fanaaniin ay isticmaalaan dad badan oo tiktokers ay isticmaalaan fartaan doonaan qoraa waa la iska ogyahay heestii u hergashay markaasi oo qalbi badan ay ku soo jiidatay ayay ahayd marka mar walba fartaan doonaa qoraa ay taagan tahay malyumaanka oo waxa ay leedahay anigu hadii aan doonana sidaana u qoraya hadaan doonana sidaana u qoraya marka fartaan doono ayaan qoraa maalin walbaba yaani waqti walbaba waa idin xasuusinaya sidaana waan aqaanaa malyuum waxaan leeyahay waxaan rajeynaynaa horta dhammaan hadaynu nahay bahda janalka sir iyo caad waxaan mar walba kula garab taaganahay duco iyo xasuus iyo walaalnimo sababta oo ah maalintii aad adigu xaaladda ku jirtay oo Sharma Boy muuqaalka soo dhigay anaga waxaynu ahayn dhamaanteen hadii aan been sheegin aan ka wada mideysanahay inaan soo wada hadalnay oo dhamaan aan ka soo wada hadalnay markaasna aan sheegnay in aan dhamaanteenba soo duceynayno soona duceynay xitaa ilaahayna wuu kula fududeeyay oo hawshay si dhib yar ayay u dhamaatay waana kula soconaa mar labaadna waxaan ku leenahay ilaahay ha ku boogadhayo oo nabarkaaga ilaahay ha ku bogsiyo sida ugu dhaqsiyaha badan laakiin waxaanu diidnay dhamaan hadaynu sariicadnahay in aad tiraahdo waxaan dhigayaa aan u dhiibayaa xaajiga ilmaha yar aniguna waxaan dib ugu soo laabanayaa fankaaga waan rabnaa waa ku taageersana waan ku jecelnahay laakiin waxaan idin jecelnahay idinkoo markaasi mar walbaba isku ah Sharma iyo Malyuun inaan idin aragno idinkoo isku gaboobay oo isku dhamaaday biidnillaahi alkariim waxaan mar walba idin rajeynayaa noloshiina farxadda aad haysataan inay noqoto mid aad ilaa abid ku noolaataan mar walbana saas ayaan idin rajeynayaa reer sariicad muuqaalka waxaad ka aaminsaneed waxa ay kula tahay commentiga nagula wadaag muuqaalka commentigiisa la gareysina share gareey asxaab badan la wadaaga mid xiga inta ku kulmi doono amaba ka duwan waxaan dhamaantiin ba idin kaga sii tagayaa nabadino